السلام عليكم صحابته isku soo noqod wanaagsan maanta waxa waaye nadaafad ay ka shidan tahay klinigaas waxa waaye kliniga fitamiinka oo ciyaalka aan siisto hada ay tusaayay qaboobahan waxa waaye ciyaalka in fitamiinka la siiyo caanaha wax kasto oo calcium ku jiro ciyaalka waa in la siiyaa hooyooyinka taasaan kala dardaarmaa insha Allah waa ujeedina saxaabe gabadheedii waxay tiri hooyo qaanadaha qaybta kor aniga ka caawinayo ma rabi inaan kor fuulo marka ayada yariis meelaha oo koro aan gaarin waxaan rabaa inaan iyada saaro ay soo tirtirto insha Allah waxa waaye isbuucii hal mar inaa maaragtay raashinka qaanadaha wixii ku jiro iyo saliidaha wax dhan inaa kasoo bixisid qaanadaha iska tirtirtid way fiican tahay haddii kaleeto dhegdheg sokora lagu daadinaa caana ku daadinayo armaajooyinka caana budaha haddii kugu jiraan caana booraha muxuu ahayd fiinta waa lagu daadinaa wax lee lagu daadinaya marka wax dhan inaa maaragtay iska soo tirtirtid waaye ana qaybta hoosan shaqo ka haya ujeediin hadda mikrooga waaye waxaan dhaqooyo waanan tirtiro iyo qaanadaha qaybta aan gaaro gabadheedana waxay dhahdaa hooyo qaybaha kore aniga tirtiraayo marka meelaha kore oo aan gaarin walow in wasaq saas aysan lahayn waxaan ir maadaama hadda aan nadaafadiiba aan ku wada jirno ayagana aan gacanta iska marino way fiican tahay inaa maaragtay aan nadaafada guriga iyo meel kasta inaa iska nadiifisid maday aab waqti u helaysid waxa waaye maalin kasta ma ahan in la tirtiraayo weegi hal mar gacanta iska marsiisid xitaa maaragtay intaasaaba ka badan marka waa ujeedina naftirkeyga shaqada dhinacan ka haya waxa waaye intii aan gaaraan rabaa inaan nadiifiyo marka qadada way noo karsan tahay waa ujeedin digsiga meesha iska saaran yahay xitaa meesha lagama wareejinin ma aan idala qaybsanin waxa waaye muhiimadeeda inaan qaanadaha iyo armaajooyinka inaan idala qaybsaday ahayd marka hadda shaqada way noo socotaa waa ujeedin anigii quruxleedeeda waa iska daba gadoomoynaa howlaa lagu jiraa anigana intii aan hooso dhan oo aan gaaraan rabaa inaan nadiifiyo insha Allah hadduu ilaahay ka raali noqdo marka asxaabta dhiirigelin ee idin tahay idinkana hooyooyinka waxaan ka codsanayaa ayagana maaragtay inay dhinacooda maaragtay ay nadaafada guriga ay shaxshax iska dhigaan anigana ay dhiirigeliyaan ayagana ay dantooda ay ku qabsadaan marka waa ujeedin asxaabe hadda waa kaasaan meel kastaan tirtirooyaa insha Allah nadiif aan wixii dhan kasoo dhigna qaanadii waa ujeedin meel kasta nadiif waa ujeedin ishiina macallin idin hataa siinkii alaabta lagu dhaqaayo waa ujeedin waa dhaqooyaa ana mar walba oo cunto ku kariyo meesha oo aan nadiifinayo siliga ku dhaqaa because marka siligaas ku dhaqdid uma baahnid maaragtay inaa mar walba maaragtay aad aad kaliin gareyso asigaaba nadiif iska mar walba marka shayga gacanta ku haysid waa ujeedin nadiif waaye marka qadadii wixii marka ciyaalka u kariyo wali ciyaalka qada ma siinin hadeertaan rabaa inaan qadada siiyo markaan fiidiyogan aan dhameeyo insha Allah waayo waa isku dhex waday qadada hal mar isku shubay ma idin la qaybsanin insha Allah marka waa kaas asxaabta saana marka nadiif ugu soo dhigtay weelka sideeskana istiraashada iyo siligi iyo wixii aan ku ritay geeskaas iska dhigtay qaanadihiina waa nadiif hadda alaabtii ku soo riseynaya geeskaas waxaan soo galiyay gasacweyno caano boora iyo cabitaankii fiintada bisaan galiyay wax kale oo ku daadaadanaya ma aan la gelinin inta kale toodna meelahaas aan ku kala riseysto qaanadihii kalena alaabta hoosan ku wada riseeyay oo qaybihii hoosan ku soo wada riseeyay marka kaniinigeygii daawada qanajibintana meeshaas ay saaran tahay meeshaana istiraashooyina iska saartay intaana waaba nadiif wax maba gelininbo armaajooyinka hoosa wax dhan iska galiyay fadlan subscribe hadaa ku cusub tahay channelka like